Bismillah, Warsame Digital Media, Ishmael Warsame. Wayn salaamay dhammaantiin. Caawa waxaynu ka hadlaynaa hab maamuuska ama hab dhaqanka wufuudda Soomaalida, gaar ahaan markii madaxweynuhu ama ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa la yiri oo Soomaalidu ku mahmaadaa nin hulaab xumo inuu wax qarsanayo aad moodaa. Markii wafdi tagayo oo waddan shisheeye aadayo, dabcan xubno wafdiga ka tirsan ayaa raacaya madaxweynaha ama prime minister. Wafdigaasu xubnaha ka tirsani waxaa loogu talagalay in nin walba kaalintiisa qaato, oo markii horeba criteria ayaa lagu soo xulay contributionka ama kaalintiisa uu ka geysanayo sadcaalkaas dowladaha shisheeye lala kulmayo. Wafdigu badanaaba wuxuu isugu jiraa xubno xagga farsamada ah, sida turjumaanada, sida dadka wax qora ama qorayaasha, iyo kuwo yacni fiil ama maaragtay arrin gaara takhasus ku leh, iyo wasiiro يعني portfolio ama department ama waax dowladeed ka socda oo iyagu madax ka ah wasaarad ama hay-ad. Waftigaas waxaa loogu talagalay inay shirarka dhacaya marka dal ajnabi la jooga ay si buuxda uga qayb qaataan. haddii kale maxaa loo kaxaystay oo u raaceen madaxweynaha ama prime minister? maxaa kharashkaa loo gelaya haddii markii magaalo laga dego la oranayo madaxweynaha ama prime minister keliya ayaa la kulmaya madaxda halkaas ee ajnabiga ah? Sidoo kale markii wufuud sare oo ajnabi ay dalka yimaadaan, dabcan dad baa loo saaraya, يعني وفدي مدحديس أما مدحوينه هذا أما رئيس الوزراء هذا إيو رج لجو بيريو أو كغيب قادنا إياه هؤلاء لو إدمري وده هذا اللذا كسابسن دولة الصومالية ده إيو وفود أجنبية. waxaa dhacda oo caado ah in madaxweynaha dowladda federaalka uu safro, dal tago, wafdi la socdo, wafdigii hoteelada iyo guryaha la dejiyay uu uga tago, oo isagu aad moodid inuu u dhuumanayo madaxdii dalkaas ee loo tegay. maxaa waxaa kalifay? muxuu qarsanayaa madaxweynaha prime minister? ma wax gaar u wataa? soo wax dan guud oo dalkaas oo maaha. dadkii uu xushay oo raacay, yani hadduusan aaminsanayn ama qaar aaminsanayn, muxuu ka haysta oo waftiga ugu daray? soo maaha awalba kaalin inay ka qaataan shaqada waftigaas soo looguma talagelin? waa meesha yani waa ku celinayaa nin hulaab xumo inuu wax qarsanayaa la moodaa. arrin hadda waxaa jira taariikhda gashay oo la isku haysta ilaa iyo hadda. America markii ugu horreysay ka dhacday in madaxweyne Trump Helsinki maruu wafdi u tagay oo Putin la kulmayay uu keligii la kulmay. ilaa iyo hadda labadaa nin wax dhex maray sirdoonka Maraykanka iyo dowladda Maraykanku ma oga, waa la isku haystaa. maxay ku dhacday?
maxaa madaxweynuhu qarsanaya, maxaa ra-iisul wasaaruhu qarsanaya, maxaa wafdiga loo kaxeeyey haddayna ka qayb galayn, meeye kaalintoodii ay kaga qayb galayaan shirka. awalba soo laguma xulan criteria ay la rabay inay maaragtay wax ka geystaan oo wafdiga yacni kaalintooda ka qaataan. maxay tahay hab maamus xumadan? ama wafdi saraa imaanaya, madaxweynihii iyo wafdigaa ka tirsan iyo raggiisii yaa maaragtay qolis la gelaya mugdi ah. yacni putin markuu la kulmeeyey keligii, ninka la yiraahdo keligii trump, hadda putin waa lala socday, turjubaankiisii baa joogay, wasiirkii arrimaha dibaddaa joogay, trump baa dhex fadhiya wafdigii ruushka. maraykankiina waxa ma oga, xataa wariyaashii maraykanka waa loo diiday inay ka qayb galaan ama maaragtay badanaaba markii wafdigaasoo kale meel tago oo madaxdu shidho read out wax la yihahdaa ka soo baxay. yacni maxaa laga wada hadlay, maxaa lagu heshiiyey, markaasaa la shaaciyaa. kayskii trump hadda putin baa faafiyey, kremlin ka faafiyey in waxaasu ay dhaceen, maraykankiina waxba kama oga, iyo hay-adihiisii sirdoonka iyo wasaaraddii arrimaha dibadda. waxyaalaha dhacaya waaya qiso yar baan idiin sheegaya. dowladdii puntland oo dhalatay markaas 1998 ma iga rumaysanaysaa? waddamo badan baanu tagnay oo yurub iyo america iyo carabba leh iyo afrikaan. weligiis cabdullaahi nin madaxa keligii laba kulmi. yacni wafdiga ama waa wada joogay ama bar baa ka qayb galayay, wada hadalladaas. hadhowna haddii wax micnaa laga hadlay oo dalka dan u ah, dabcan guddiyaa la saarayaa farsamo. haddaysan waxba ka ogeyn oo shirarkii hore ka qayb gelin, seebay maaragtay contribution ama kaalin uga qaadanayaan qoraallada xataa la samayn doono, ama wadahadalka ay la gelayaan kuwa maaragtay iyaga dhigooda. yani waxyaalaha yaab kale oo ka dhaca weeye soomaaliya madaxdeeda, ama madaxweynahaada, ama ra-iisul wasaarahaada, xataa wasiirada qaarkood. yacni habkaasu hab dowladeed ma aha, wuxuu waa howl dadweyne weeye. dadweynahana waxaa ka mas-uula dadka hadda madaxda ah, laakiin madaxda waa kala heer. nin madaxweyne oo kale ama ra-iisul wasaare iyo rag ka hooseeya. raggaas haddayna ka qayb gelin, maxaa la soo kordhiyay, maxaase la qarsanaya? waa su-aal aan jecelahay inaad u fiirsataan, akhrisaan, ka jawaabtaan. waa mahadsantii. Warsama Digital Media.